xalay ayaa lagu waday in magaalada tan caasimadda ah ee Muqdisho uu ka furmo shir wada tashi ah oo u dhaxayn doona madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shalay gelinkii dambe yimid Muqdisho iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka ayaa intiisa badan diiradda waxaa lagu saari lahaa arrimaha doorashooyinka, la dagaalanka al-shabaab, arrimaha musuqmaasuqa iyo sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa nooca doorasho ee ka dhici karta dalkan. shirka ayaa la sheegay inuu ku yimid dib u dhac ka gadaal markii aan helay xogo dhammaystiran oo ku dahaaran sababta keentay in shirkan dib uga dhaco wakhtigii loogu ballamay maadaama shalay gelinkii dambe filla Soomaaliya ay war ka soo saartay shirkan ballantuna ay ahayd in xalay abbaara 4 saac iyo 12 daqiiqo shirkan si rasmi ah uga furmo aqalka looga arrimiyo dalkan ee filla Soomaaliya. madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegay in mid ka mid ah madaxweynayaashaasi uu shuruudo ku xiray ka qaybgalka shirkan. ka hor shirkan waxaa xarunta xalane kulan ku yeeshay sidaan xogta ku helay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. labada mas'uul kulankoodu ahaa foolka fool ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee deegaanada maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa shuruudo dhowra waxa uu hordhigay Fahad Yaasiin. shuruudahaasna waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya gebi ahaanba ciidamada haramcad ka soo bixiso guud ahaan gobolka Gadow siiba Barad Xaawo iyo deegaanada hoos yimaada. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ugu dambayn lagu kala kacay waxaana xigay in shirkii Fahad Yaasiin iyo Axmed Madoobe kadib la rabay inuu shir kale ka dhaco madaxtooyada ha yeeshee waxaana loo sheegay in Axmed Madoobe shirkaasi shuruudo ku xiray. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu wacd ku maray inuusan shirka ka qaybgelin ilaa ma inta dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaynayso in ay ballan qaadayso in ciidamada haramcad ee la geeyo gobolka Gadow guud ahaan dib looga soo celinayo. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay inuu dadaal u galay sidii uu dhexdhexaadin lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland sababtoo ah ajandaha shirka waxa uu ahaa in looga hadlo arrimaha doorashooyinka mana aysan ku jirin in uu shirka la yimaado Axmed Madoobe arrimaha ammaanka siiba marka laga hadlayo arrinta gobolka Gadow. si kastaba ha ahaatee kulankii ayaa ugu dambayn fashilmay waxaana jiray dadaallo xalay ay wadeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo Axmed Madoobe ka dhaadhicinaya inuu shirka ka qayb galo si shirkan uu furmo. xalay sidoo kale Muqdisho waxaa kulamo gooni ku qaatay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaashii dalkan soo maray.